waxaa xarada qaxootiga Ifalabo laga bilaabay mashruucin dhafiiqada. mashruucan ayaa waxaa ka faa'iideysanayaan in ka badan 250 qof oo qaxooti Soomaali ah kuwaasoo ay soo abaabuleen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Mareykanka waxayna soo wakiishteen Dr. Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud oo in ka badan 13 sano qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga Dadaab. ugu horeyntii halkaasi waxaa ugu mahadceliyeen Dr. Cabdiqaadir qaar ka mid bulshada ka faa'iideysteen mashruucan waxaana ka mid ahaa hadaladooda sida tan يا دكتور cabdiqaadir ka baxay qaxootiga naga ifo inta loogu gargaarayo oo loogu duceynayna hadii alla yiraahdo wixii muslim ah oo wadanka ka imaaday hadaba jira waxaan hadana codsi labaad u cusubnaa inuu hadana gargaar kaleeto nala soo fidiyo asagana waan u duceynayna wixii muslim oo indhaha u qalay wixii muslim oo daawo siiyay hadana khayr iyo baraka waan u duceynayna wiilka Soomaaliyeed dhanna waxaan ugu baaqaynaa sida cabdiqaadir oo kale inuu noqdo sida uu ka tagay saqiir iyo kabiir nina aqoonini ma qoodo intaba uu salaamaya حدث العسكري دكتور مسؤولين الغرية عندها أفريقية وانت توالى ومهم سواء الله ومشروع عنك يهرت السير هذا وحاتي ووصل للطريق لي الحمد لله يقولنا إنه تحكسيات تذكر الله وحنا امتحان الله امتحانه أي محمود عليه أنا يسكت السبب مسيرنا إلهي كان إلهي كان بعض حنكرة وإن شاء الله وضع لنا ما وهو يديا عندها كفرسنا عندها وحال لها مخيميان والجدة ويؤسوا قرينا إن شاء الله أبو إلهي هذا إلهي ما وحكس أولك كان أصلا ضدك عافية إلهي وكم هذا لنا ومشروع في عنك الله وإنه قلنا فايدي شريعة جارحان فوان إلهي وكم هذا شب لحال الله فيه أو كيرو هرنا ويدي لكن هذا الحمد لله هذا إلهي ومهدله رسولك فالله وحام مهدسن قارغا وانين مهدسن ومسلم وإسلام وينادركنا وحام أباهنا وحنا وقفت داو بحوتنا دبك اليامينتا دبك اندورياشا دبك تباليسن إيوح الوقف sidoo kale Dr. Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud ayaa asna dhankiisa ka sheekay waxyaabaha ku qasbay sidoo ay ugu suurtagaleen inuu mashruucan uu la soo aado xeryaha qaxootiga Dadaab. bismillaah marka uu reesay anigu waxaan ahay qaxootigii deganaan jiray kamid ahaa xeryaha Dadaab ka bilaabato 1992 ilaa 2013 markii aan u wareegay xerada ka kubo waxaa ka mid ahaa dadkii ka shaqayn jiray dhakhaatiirta ka dhex shaqayn jirtay xeryaha Dadaab muddo inta la eg 21 sano waxaan ka mid ahay haddana bulshada Soomaalida ah ee ku nool dib u dinta ka heshay USA gaar ahaan waxaan deganahay New York ilaa iyo 3 sano aan ku noolaa New York waxaan ka shaqayn jiray inaan wacyigeliyo bulshada Soomaalida ah خاصة كسجد حلنا الدار إن أي كتاب قاتان سلو عاويو ذكرني أكترني حريان الدار ونبان خاصة هان قيت يعني أن صبرت إنها يوعي جنجري إنها مركلية عن أركاني وتاجن وإني فقه عندي على قدر يعني إلهي لما هذا أسكله قف كست أو كست قيم قلي إنه بحي ماركي سأورو شغال ما كان هينو aad baan ugu mataqaanaa ilaahay ugu baryaynaa inuu dambigiisa akhiro khaas ahaan anaga tagarkeena waxa weeye saddexda xero in boqol indhaha loo fiiqo noocan fiiqayna waxaa leedahay noociisa waa la cataract wuxuu noqon karaa wuxuu sameysmaa dhowr nooc wuxuu ugu leeyahay kan da'da dadka keenta ugu badan waxaa dhici karta inuu yahay mid ay keento mataqaanaa wax ku dhacay qofka oo sida arag ku beelo marka ahmiyadooda waxaa weeye isha aragga beeshay inay u qalanta in la qali karo inaan u fiiqno haddii alla yidhaahdo tiraan doonaynana waxaa weeye ilaa iyo 200 inta udhexaysa ilaa 300 xasan kaafi badda castoona TV xeryaha qaxootiga Dadaab.